وحصل أيام له دولة مانتا محمد عبد الله فرماجو هي خير حمل كرسة إلى مالتي لدورتي إلى مالي كان مانتا وحا أي ويرد شوبته أو قاون أو دين عوال بقوهيا أو إلا حد أي قوهيا قرن السومالي دقالنا لغا شيكيني هو شوبته دقال كان قال هو شوبته كعونا قرتين هو شوبته كبربقان هو شوبته وحلا ياب له oo taariikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku guul ku gaadho waa la waayay Soomaaliya sodonkiisa ama 40kiisa oo dhawaay u dambeeyay dagaal u dambeeyay ku jirtay waana wada digtay caqliga toosan Soomaalidu maanta meel jirto waxay baantay inay qorigaan inta taran gaadho tashato laakiin waxaan arkayaa dawladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareeysa dadka kuwaynaysa ee kismaayo u samaysanaysa ee Puntland dibadda ay kaga baxsatay ee Soomaaliland dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya ciidamada qaranimada ay ilaalinayaan ee qaranimada midowga dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaali ka midowso laakiin Ilaahay waxa lagu rajaynayaa in Ilaahay fidmadeedu laga nabadgeliyo inaguna uu diyaar garoobaynaa waxa ay dhibaateen oo yimaadaan dhinac walba inuu iska daafacdo laba hal la isma qabanayaan waxa soo baxay oo dawladda xamar ee farmaajo ee khayr keenay inay yiraahdaan Somaliland xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu dhigteen xuduudda isticmaalka afkuura laga tagay aqbali mayno ee waxaanu sameynaa xadbeelad horta beel gudaheeda haddii xadwaysta dhisma ka dhisa ma jirto oo taariikhda tustay waxay ugu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay Cabdiwali ka horeeyay ninkan imika la doortay waa in la sameeyo xuduud beeleed xuduud waxaa laga yaabaa xuduud beeleed uu doonayaa isaguna banaadir buu xukumaa labadaas isma qabtaan وطلبات حد بيرد بدونية أو ضد كل أيء ونقول صوري أو ضد صوري وباهي ما وعيد وشو وكري وعبد الله كابر وحلياب له مكني يسجل الدورين أيه وحالته تمي وهرجي ما شاء الله وبضع وعدا كملها أحمد إسماعيل سمطر مركز دور الشدي حوار في المكان قالوا حلو ورد الكاغيته وكله وحاروها منك تقول لهم بدل السوماليين أحمد إسماعيل وتقول له والله ما وحي له إسماعيل بابا كوري 10 سنة وها وزير خارجي ويقول له روح ما شيء له نيك حمر بيقول هذا الساعة ودي على السومال هذا وين وضع الله وين هرجيسين بريء بور دي الله سبحانه وتعالى وآخر لا يعمل تهوى حكت البيسي شركة دورشة اللي وقال هي جروي واحد شر إسوس شرحي رجع الصومالي وقال وين كملها Somaliland hormoodkeeda iyo aqoonteeda ugu horeeyay nasiib darro hadii ay tahay xuduud baa sameysanayaa ninka Somaliland ka yimid la saacado ka yimid wuxuu ahaa tartan ka qayb wax laga siiyo laakiin ma in la yiraahdo Soomaaliya waa tahay Somaliland waa tahay Soomaaliland ku noqo may ahayn labada islaan ugu filan aqliyada taalo koonfur Somaliland oo la yiraahdo in kala tudurbaar labada raad dad badan kaga dhawaajiyaan idaacadaha oo aan wali wixii ku dhacay Axmed Ismaaciil Samatar iyo Ali Khaliif iyo Ali Ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxa uu sheegaya Soomaalidu waa wadani marxaatigeedu waa maxay daahir riyaale ayaa ka guuleystay doorasho gacmeed oo wal ma wafowta silaayo oo ha hogaamiye sano oo lagu qaabilo 8 sano ku xukumay marxaatigeeda Soomaaliland la wadaleeyahay waxa ah xagla toosiyay ayaa la tartamay ninka la yiraahdo Sayrici oo ku sigay oo diriq kaga baxsay inuu ka reeyo ma Soomaaliland la leeyahay oo loo simayo nin walba doodiisa ka dhigto weeye xamar waxa aan leeyahay idinkiina dab isku shaqeysa adduunkiina waa dab ku shaqeey annagina dagaal baan ugu haysaa aqli kala ka dhaama halala yimaado annagu nabad iyo hal isbiso iyo dhibaatooyinka la baxaan taagana laakiin xadka Soomaaliya difaacina diskoorkan afraaya dadka iyaga afraaya cidna ka aqbal bayno xadkii Soomaaliya u dhaxeeyay waa ku soo duuleena taa intaas ka haraya